بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقيسيال كل نوعنا ونكسن إذا الهانتين بكسر هذا برنامج كحولك وررك عالمك odago barateen habeen walba hadahan oo kale marka ay saacadu soo gaarto inaad kala socotaan radio wala xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Caabudwaaq qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena waxaa kamid ah xuutiyiintii Yemen oo weerar ka fuliyay gudaha dalka Sacuudiga Netanyahu si qarsoodi ah ula kulmay Mohammed bin Salman iyo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan dhageysiga dacwad dad loo haysto dilkii wariyay Jamal Khashoggi oo ka bilaabanaysa dalka Turkiga iyo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan 5 qof oo lagu dilay weerar lagu qaaday masjid ku yaala wadanka Nigeria UN-ka oo ka baqayay in la sii wado gargaarka Afghanistan ka hor shirka deeq-bixiyaasha qaramada midoobay oo ku baaqaysa in la sii wado gargaarka Afghanistan ka hor shirka deeq-bixiyaasha iyo sidoo kale Ethiopia oo ku eedeysay ciidamada Tigray inay burburiyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Aksum waxaad kaloo ku maqli doontaan ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi oo si weyn ugu hambalyeeyay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena xulka waraysyada ee u diyaar garowcan aynu ku bilownay kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalantay dalka Yemen ayaa duqeysay ceelasha shidaalka ee shirkadda Aramco oo ku yaala gudaha dalka Sacuudiga war kooxdan ka soo baxay ayaa lagu sheegay in ay bartilmaameedsadeen ceelasha shidaalka ee shirkadda la yiraahdo Aramco ah shirkadda ugu weyn ee shidaalka ka soo saarta dhulka boqortooyada Sacuudiga Yaxya Sareeya oo hadlay kooxda xuutiyiinta ayaa waxa uu ku hanjabay inay sii wadi doonaan beegsiga xarumaha ilaha dhaqaalaha ee dawladda Sacuudiga warbaahinta carabta qaarkood waxay sheegayaan in dhowr gantaal ay la dhaceen kayd shidaal oo ay shirkaddu ku leedahay magaalo xeebeedka Jiddah dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si qarsoodi ah ugu duulay dalka Sacuudi Carabiya xadii si uu la kulmo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo sida ay sheegtay warbaahinta Israa'iil xubin ka tirsan golaha wasiirada Netanyahu iyo waliba xisbiga Liquid ayaa isniintii xaqiijiyay warar sheegaya in hogaamiyaha Israa'iil uu shir ku qabtay Sacuudi Carabiya kuna tilmaamay guul la yaab leh xaqiiqda dhabta ee kulanka dhacay oo banaanka looga soo baxay xitaa haddii si rasmi ah xaqiiqda dhabta ee kulankaasi waxyaabaha laga wada hadlay iyo wixii markaasi kulankaasi uu ku saabsanaa oo la haynin ayaa haddana muhiimad weyn u leh wasiirka waxbarashada Yoav Gallant ayaa u sheegay Riyadh ciidanka mar walba xaqiiqda dhabta ee kulankaasi aan la haynin iyo waxyaabihii looga wada hadlay haddana waxa markaasi sida uu sheegay wasiirka waxbarashada Israa'iil Yoav Gallant uu sheegay in markaasi ay tahay arrin aad ay u bogaadinayaan oo soo dhaweynayaan booqashada ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu ku tagay Sacuudi Carabiya kulankii xadii waxa uu calaameeyay kulankii ugu horeeyay ee la ogyahay ee dhexmara saraakiisha sare ee Israa'iil iyo Sacuudiga xilli uu Mareykanku riixayo inuu ku qanciyo dalalka Carabta inay caadi ka dhigaan xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil horaantii isniintii raadiyaha dadweynaha ee dalka Israa'iil ayaa sheegay in madaxa markaasi Mawsad Yuzi uu sidoo kale ka qayb galay kulankaasi oo la sheegay in lagu qabtay Neema oo ku taala xeebta badda cas ee Sacuudi Carabiya xafiiska Netanyahu iyo safaaradda Mareykanka ee Israa'iil ayaan wax jawaab degdeg ah ka bixin sidoo kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dawladda Sacuudiga sida laga soo xigtay maalinlaha Israa'iil ay yiraahdo Haaretz dabagalka duulimaadyada ayaa muujinaya in diyaarad qaas ah ay safar gaaban ka samaysay Tel Aviv ilaa Neoma halkaasoo dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya iyo Pompeo ay ku ballansanaayeen kulan maalintii Axadda website-ka duulimaadyada la socda ayaa muujinaya in diyaaraddu ay xayirnayd ku dhawaad 2 saacadood ka hor inta aysan ku laaban Israa'iil qiyaastii nus saac marka ay dhaaftay saqdi dhexe Pompeo wuxuu isku dayay inuu qanciyo quwadaha qaliijka si uu u raaco dariskeeda isu taga Imaaraadka Carabta ee EU iyo Bahrain si xiriir rasmi ah ula yeeshaan Israa'iil oo isku soo dhawaanshaha badankooda lagu dhisay walwalka ay ka qabaan Iran
riyaad ilaa iyo hadda way diidan tahay inay caadi ka dhigto xiriirka ay la leedahay israa'iil iyadoo sheegtay in ujeedooyinka dowladnimo falastiin ay tahay in marka hore wax laga qabto laakiin sacuudigu wuxuu oggolaaday dayuuradaha israa'iil in si xad dhaaf ay dhulkooda ugu duulaan meelaha dhowaan ay duulimaadka ka sameeyeenna waxaa ka mid ah khaliijka iyo weliba aasiya. dhammaadkii isbuucan wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga amiir faysal bin farxaan al suudi ayaa sheegay in dalkiisa uu taageeray caadiyeynta israa'iil muddada dheer laakiin hal shay oo muhiim ay tahay inuu marka hore dhaco heshiis nabadeed oo joogta oo buuxa oo dhex mara israa'iil iyo falastiin. intii lagu guda jiray kulanka lala yeeshay wasiirka arrimaha dibadda sacuudi bishii lasoo dhaafay bambo wuxuu ku booriyey sacuudiga inay ka fiirsadaan hagaajinta xiriirka israa'iil. waxaan rajaynaynaa in sacuudi carabiya ay tixgelin doonto caadi ahaanshaha cilaaqaadkeeda israa'iil. maamulka trump ayaa isku dayay in sacuudiga uu ka dhaadhiciyo inuu heshiis la galo israa'iil kadib markii qaar ka mid a dalalka carabta ay heshiis nabadeed la galeen israa'iil kaasoo dib loogu soo celinayo xidhiidhkii kala dhexeeyey. maxkamad ku taala dalka turkiga ayaa dib u bilaabi doonta dhageysiga maqnaanshaha 20 ka mid ah saraakiisha sacuudiga maalinta talaadada ee markaa lagu soo foole dilkii foosha xumaa ee loo geystay suxufigii Jamaal Khashoggi oo 59 sano jir ah isla markaana wax ku qori jiray Washington Post ayaa dhaleeceyn weyn oo ku saabsan maamulka dhabta ee boqortooyada Sacuudi Carabiya Amiir Mohammed bin Salman u jeedin jiray waxaana markii ugu dambeysay la arkay isagoo galaya qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul October 2018 halkaas oo uu aaday soo qaadashada dukumiintiyo ku saabsan aroorkiisa Hatas Janza. wariyaha ayaa lagu dilay qunsuliyadda waxaana la sheegay in meydkiisa la jarjaray oo laga saaray dhismaha meydkiisa ilaa iyo hadda lama helin. dilka ayaa dhaliyay cara caalami ah waxaanu hoos dhigay sumcadda dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in amarka dilka Khashoggi uu ka yimid heerarka ugu sarreeya ee madaxda Sacuudiga waxaana taasi ay markaasi iska fogeeyay oo markaa sheegay inuusan ku lug lahayn dhaxal sugaha dalka Sacuudi Carabiya. Sacuudi Carabiya waxay sheegtay in Khashoggi lagu dilay howlgal been abuur ay sameeyeen wakiilka amiirka dhaxalka leh markaasi la tashanayay asaguna waa uu diiday arrinkaasi inuu ka hadlo. sanadkii la soo dhaafay baaritaan ay sameysay qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday saraakiisha sare ee Sacuudiga ay si taxadar leh u qorsheeyeen dilkaasi. baaritaan kadib dacwad ogayaasha Turkiga bishii Maarso waxay ku eedeeyeen ninka la yiraahdo Suud al-Qathani oo la taliye sare oo markaasi dhinaca dhaxal sugaha iyo Ahmed al-Izri oo ku xigeenkii hore ee sirdoonka Sacuudi Carabiya ninkii ugu horeeyay ee ka qayb ahaa dilka Jamaal Khashoggi. 18 muwaadin oo Sacuudiyiin ah ayaa lagu soo ogay dil qorsheysan. dacwad ogayaashu waxay raadinayaan xukun markaasi xabsi daa'in ah dhammaan in lagu xukumo eedeysanayaasha dhammaantood waxay ka baxeen Turkiga iyo Sacuudi Carabiya waxay diideen inay ka jawaabaan. horey ayay dowladda Turkigu shakhsiyaadka dilka wariye Jamaal Khashoggi lagu eedeeyay oo u badan askar sirdoon iyo Sacuudi ka tirsan dacwadooda ugu gudbisay booliiska adduunka ee Interpol waxaana la dul dhigay markaa digniinta casa. dacwadan waxaa ku jira cadeymo laga helay diiwaanka taleefanada iyo waliba muuqaalka CCTV ee tuumayaasha waxaana la magacaabay 54 markhaati ay ku jiraan 26 xubnood oo Turkiya oo ka tirsan shaqaalaha qunsuliyadda iyo waliba hoyga qunsulka. Axan Glamour oo ah khabiir qaramada midoobay u qaabilsan dilalka sharci darrada ayaa sheegay in dacwadda lagu soo oogay ay ahayd dheelitirnaan cadaalad darro ku dhacday oo gacanta Sacuudiga ka timid. maxkamad ku taala Sacuudi Carabiya ayaa bishii September laashay xukunadii dilka ahaa ee lagu xukumay 5 eedeysane kadib dacwad albaabadu xiran yihiin oo ka dhacday Sacuudi Carabiya sanadkii hore iyadoo taas bedelkeeda ku xukuntay 20 sano xabsi ah. dacwadooga Sacuudi ayaa sheegay inaysan jirin wax cadeyn ah oo al-Qathani uu ku xiray dilka waxaana meesha ka saaray dacwadaha ka dhanka al-Nazri. Janza wuxuu ka markhaati furay kala fadhigii furitaanka dacwadda ee ka dhacay Istanbul bishii Luulyo. waxaa lagu yeeray qunsuliyadda qiyaano weyn ayaa loo dhigay iyo dhagar sidaasina waxaa yiri Janza
dhowr xubnood oo ka tirsan shaqaalaha qunsuliyadda ayaa lagu yeeray markhaati ahaan oo uu ku jiro farsamayaqaan maxalli ah oo la yidhaahdo zaki damiir oo ku tilmaamay hawo argagax leh qunsuliyadda maalintii la dilay oo uu sheegay in laga codsaday foornada dabka inuu shido ka hor inta uusan ka bixinin qareennada difaacaya ee maxkamadda ayaa magacaabay turkiga waxaana ay sheegeen inay awoodi waayeen inay la xidhiidhaan macaamiishooda dhegaysiga dacwadda ayaa dib loo dhigay ilaa bisha November 24 markaasoo la dhegaysan doono markhaati dheeri ah bishii September 6 muwaadin oo cusub oo Sacuudi ah ayaa lagu soo oogay dacwad labaad oo ay soo oogeen dacwad oogayaasha turkiga oo lala xidhiidhinayo in lagu soo qariyay dilka kaasoo lagu wado in lagu daro maxkamadaynta socota Orlan Anduwi wakiilka turkiga ee wariyaasha aan xuduud lahayn ayaa u sheegay TV-ga Al Jazeera inay muhiim tahay helitaanka cadaalad khashowni iyo kiiska uu horseed noqon doono hanaan caalami ah oo ilaalin kara sida wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan ammaanka suxufiyiinta waa muhiim in bulshada caalamku ay abuurto tallaabooyin la taaban karo oo looga hortagayo kiisaska noocan ah ee mustaqbalka weli barnaamijkii qubanaha wararka caalamka ayaad bartanka kaga jirtaan dabley ayaa 5 qofood ku dilay 18 kalena way ka afduubteen weerar ay ku qaadeen masjid ku yaala gobolka Zamara ee waqooyi galbeed dalka Nigeria sida booliiska gobolka ay sheegeen ilaa 100 dabley ah oo tuugada looda xadaa oo ka socda mootooyin ayaa rasaas ku furay masjidka oo ku yaala xaafadda Distingari ee degmada Meru xilli dadku ay tukanayeen salaadii Jimcaha burcadu waxay dileen 5 qof oo cibaadeysanayay waxaana ay afduubteen 18 kale oo ku jiro imaamkii masjidka waxa sida AFP u sheegay afayeen u hadlay booliiska gobolka Mahamudu Shaw dadka deegaanka ayaa si kastaba sheegay in dadka la afduubtay ay yihiin 30 qof dableyda ayaa soo weeraray masjidka xilli uu imaamku aqrinayay khudbadda Jimcaha waxaana ay afduubteen 30 qof oo ay ku jiro imaamkii kadib markii ay toogasho ku dileen 5 qof waxa sida AFP u sheegay Ibrahim Altin oo kamid ah dadka xaafadda waqooyiga galbeedka Nigeria waa meel caan ku ah burcadda hubaysan ee weerarada xaafadaha kuwaas oo hadalooda dadkana afduubta iyaga oo ka dalbanaya madax furasho madaxa qaxootiga ee qaramada midoobay Filippo Grandi ayaa ku booriyay bulshada caalamku inay ku ekaadaan Afghanistan isagoo ku baaqay si weyn loo taageero qaxootiga iyo dadka ku barakacay gudaha dalka ka hor furitaanka shirka caalamiga ee deeq-bixiyaasha oo socon doona 2 maalmood madaxa UNHCR waxa uu sheegay isniinta maanta in mustaqbalka malaayiin reer Afghanistan ay ku xiran tahay natiijada wadahadalada nabadda ee u dhaxeeya xukuumadda Kaabul iyo Taliban oo lagu qabanayo caasimadda Qatar ee Doha iyo ballanqaadka beesha caalamka ee horumarinta wadanka dagaaladu ay afeeyeen guuldarooyinka labada dhinac midkood waxay u arki doontaa Afghanistan gadaal inay u socoto iyadoo la imaanaysa cawaaqib xumo oo ay ku jiraan barakac horle iyo suurtagalnimada in baaxad weyn ay markaasi dhibaato bini'aadanimo gaarto Grandi ayaa ka digay bayaan ka hor shirka 2020 Afghanistan codsiga Grandi wuxuu yimid kadib booqashadii wadanka koonfurta Aasiya oo la daala dhacaya rabshado sii kordhaya iyo ka bixitaankii ciidamada Mareykanka iyo wadahadalada nabadeed ee ay riixayso maamulka xilka ka sii degaya Trump falanqeeyaashu waxay sheegayaan ka bixitaanka qayb kamid ah ciidamada Mareykanka ee maamulka Trump uu shaaciyay toddobaadkan ay sii wiiqayso xukuumadda Kaabul inta lagu guda jiro wadahadalada nabadda ee ka socda Doha inkastoo heshiis bishii Febraayo ay kala siixdeen Taliban iyo Mareykanka haddana rabshadaha ayaa ku sii kordhay wadanka iyadoo Grandi uu sheegay in ku dhawaad 300 oo kun oo reer Afghanistan ay ku barakaceen wadanka gudihiisa dagaalada sanadkan ay wali ka sii socdaan isla markaana dadku ay rabaan taakulayn bini'aadanimo Afghanistan ayaa wajahaysa markaasi in laga jaro gargaarka dhanka kalena wakaalada wararka Reuters ayaa soo warisay in qaar kamid ah deeq-bixiyaasha caalamigu ay ka fiirsanayaan inay yareeyaan gargaarka ay siinayaan Afghanistan isla markaana ay xayiraad adag ku soo rogaan lacagta gargaarka ee muhiimka iyadoo ay jiraan xiisad dagaal iyo waliba cudurka COVID-19 dhaqaalaha Afghanistan ayaa lagu wadaa inuu markaasi ugu yaraan uu gaaro 5.5% sanadkan iyadoo ay sabab u tahay faafidda COVID-19 ayuu bangiga adduunku ku sheegay warbixintiisii ugu dambeysay ku dhawaad 3 milyan oo horay u barakacay 9 milyan oo qof oo ku waayay noloshooda musiibada COVID-19 ayaa iyaguna u baahan gargaar
wasiirro ka socda ilaa iyo 70 dal iyo saraakiil ka socota ururada samafalka ayaa la filayaa in ballanqaad ay sameeyaan kuwaasi oo ah malaayiin dollar si loo ilaaliyo mashaariicda horumarineed shirweynaha istaraatiijiga ee lagu qabtay Geneva Isniinta maanta iyo Talaadada. istaraatiijiyadu waxay ujeedadeedu tahay in la ilaaliyo wadahadallada nabadda isla markaana laga dhiirigeliyo dowladda Afghanistan inay horumariso qoondaynta ay yiraahdeen deeq-bixiyaashu shirkii ugu dambeeyay ee Brussels 2016 waxay ku yabooheen 15.2 bilyan sanadka 2017 ilaa 2020 ayaa la sheegay in markaasi ay soo gaartay oo kaliya 3.8 bilyan. taasi waxaa laga jari karaa 15% markaas ilaa 20% ayuu yiri diblomaasi sare oo reer galbeed oo ka qayb galaya shirka. tani waa wadamada ugu wanaagsan ee bixin karaan iyadoo la marayo caqabadaha gudaha ee maareynta aafada 3.8 bilyan oo dollar sanadkiiba. wali barnaamijkii falanqaynta wararka caalamka ee nagala socotaan markana Ethiopia oo ka socda Ethiopia la yiraahdo Tigray People Liberation oo magacooda loo soo gaabiyo TPLF ayaa burburiyay garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada qadiimiga ee Aksum sida ay ku warantay warbaahinta dawladda taabacsan iyadoo ciidamada federaalka ay sii wadaan in markaas ay u sii dhawaadaan magaalada caasimadda ee Maqalla. ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa u sheegay kooxda TPLF ee xukunta dhulka buuraleyda ee waqooyiga ay ku nool yihiin 5 milyan oo qof in hubka ay dhigaan maalinta Arbacada ah haddii kale ay wajahayaan gulufkii ugu dambeeyay caasimadda gobolka Maqalla. hogaamiyaha kooxda TPLF Depression Makail ayaa sheegay wakaaladda wararka Reuters in hanjabaadda Abiy ay tahay mid lagu markaasi daboolayo in ciidamada dawladdu ay dib u soo abaabulaan isla markaana ay mar kale ay soo qaadaan guluf colaadeed maadaama uu yiri in 3 waji dagaalka haatan ay la kulmeen guuldarrooyin. ma jirin jawaab degdeg ah oo ka soo baxday labada dhinac oo ku saabsan faallooyinka kale ee ugu dambeeyay. sheegashooyinka dhinacyada oo dhan waxay adag tahay in la xaqiijiyo maxaa yeelay telefoonada iyo isgaarsiinta iyo internetku dhammaanba waa go'an yihiin. boqolaal ayaa lagu dilay dagaalada ka socda Ethiopia ee isugu jira weerarada cirka iyo dhulka kadib markii dagaal uu ka qarxay u dhaxeeyay Ethiopia iyo xogaga TPLF 4 November. qiyaastii 40,000 oo qaxooti ah ayaa u gudbay dalka Suudaan oo xuduud yihiin markaasi dawladda Ethiopia. colaadda ayaa ku sii fiday meelo ka baxsan Tigray iyadoo kooxda TPLF ay gantaalo ku garaacday gobolka deriska la Ethiopia Amxaarada ee la yiraahdo markaasi iyo sidoo kale xadka Eritrea. warbaahinta markaasi Vanna ayaa isniintii sheegtay in ciidamada TPLF ay burburiyeen garoonka diyaaradaha ee markaasi Aksum oo ah magaalo ku taala waqooyi galbeed ee Maqalla waxaana markaasi goob caan ku ah dalxiiska isla markaana goobta UNESCO ku leedahay dhaxalka dunida. taariikhda Aksum iyo burburka ay ku jiraan waxyaabihii qarniga afraad ee markii Aksum in Amrik ay isuduwaha arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay qaabilsan Ethiopia Gatham Zuzi ayaa ku booriyay markaasi in lagu dadaalo in ay nabad helaan shaqaalahooda gargaarka in ka badan 1 milyan qof oo Maqalla degan iyo nidaamyadooda markaasi caafimaad. xukuumadda Abiy ayaa dhowr jeer ku celisay inuu kaliya bartilmaameedsanayso madaxda iyo xarumaha TPLF si loo soo celiyo sharciga iyo kala dambeynta kadib markii ay ka hor yimaadeen ciidamada federaalku. waxay diiday inay markaasi ay garaacdo dadka rayidka isla markaana waxay sheegtay inuu kaliya in ay bartilmaameedsanayaan kooxahaasi iyo waliba ciidankooda. ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa si weyn ugu hambalyeeyay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden. Arbacadii labada hogaamiye waxay yeesheen wicitaankoodii ugu horeeyay tan iyo markii Biden uu ku guuleystay guusha tartanka aqalka cad bishii November 8 maalin kadib markii madaxweyne ku-xigeenkii hore uu booqday markaasi Pennsylvania iyo codbixiyanada ku filan lagu xaqiijinayo guusha doorashada. xafiiska Modi ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray sawirada isaga iyo Biden oo isku duuban 2014-2016.
warbaahinta indiya ayaa sidoo kale ku dhegan markaasi fikradda qunyar socodka oo tilmaamaysa xiriirka soo jireenka ee u dhexeeya labada dowladooda laakiin waxay markaa xeeldheerayaashu sheegayaan modi iyo trump inay rumaysan yihiin in aqalka cad ee biden laga yaabo inuu muujiyo waxtar badan indiya iyo dhaqaalaheeda marka loo eego maamulka xilka kasii degaya qaarkood waxay rumaysan yihiin in siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweynaha la doortay uu wajihi karo ganacsiga iyadoo qayb ka ah istaraatiijiyadda ballaaran ee lagu doonayo in lagu sii xoojiyo xiriirka kala dhexeeya ee markaasi labada waddan ee isugu jira ganacsiga iyo dhaqaalaha sidoo kalena waxaa suurtagal ah biden inuu dib u rogo canshuuraha uu maamulka trump ku dhuftay badeecadaha indiya islamarkaana dib u soo celiyo nidaamkii guud ee dooqyada si dib ugu dhisaan kalsoonida una xoojiyaan xiriirka diblomaasiyadeed indiya weli waxay leedahay caqabado badan oo canshuuraha iyo kuwaan canshuuraha ahayn ee saamaynaya dadka maraykanka xitaa maamulka obama wuxuu isku dayay inuu indiya ka faa'iidaysto arrinta markaasi khashan bramin oo cilmi baare ka tirsan hay-adda la yidhaahdo observe research foundation oo fadhigeedu yahay mumbai ayaa u sheegay aljaziira biden wuu la socon doonaa arrimahan wuuna sii wadi doonaa ka shaqaynta iyaga keliya kuma bannaana inta badanna waxaa loo baahan yahay in wixii uu qaribay madaxweynihii hore uu dib u soo cesho heshiiska ganacsiga labageesoodka ma ahan mudnaanta koowaad inkastoo wadaxaajoodyada ganacsiga ay sii socon doonaan in yar ayaa u aragta heshiis ganacsi oo labageesood oo u dhexeeya maraykanka iyo indiya in mudnaanta koowaad uu siinaya aqalka cad ee biden iyadoo la tixgelinayo caqabadaha dhaqaale ee ballaaran ee maraykanku wajahayo waa inaad fiirisaa xaaladda biden uu ku dhexlayo iyo jawiga dhaqaale ee hadda jira rob ganda oo brofesor ka takhasusay cilmiga dhaqaalaha ee bangalore ayaa u sheegay aljaziira waa inuu marka hore wax ka qabtaa shaqola'aanta ka jirta gudaha oo uu ka fakeraa ururada shaqaalaha ee taageeraya uma malaynayo inuu riixi doono heshiisyo waaweyn oo wakhti dhowa amli bolot oo ah cilmi baarisar oo ka tirsan macadka daraasaadka koonfurta aasiya ee jaamacadda qaranka singapore ayaa yidhi waxaan arki karnaa maamulka biden oo dib markaasi ugala xaajoonaya waa barnaamijka la yidhaahdo t b b in lagu daro indiya waxaana uu sheegay aljaziira isagoo xusaya dimuqraadiyiintu ay muddo dheer ku leecaynayeen heshiisyada dhinacyada badan t b b wuxuu ahaa halbowlaha madaxweynihii hore ee barack obama oo dibdhexaadka aasiya waxaa loo arkaa inuu yahay heshiis 12 xubnood oo u dhexeeya maraykanka iyo qurumaha kale ee aasiya laakiin t b b waxay sheegtay kadib markii trump uu maraykanka ka saaray heshiiska sababo la xidhiidha walaac laga qabo inuu hoos u dhigo wax soo saarka iyo shaqooyinka maraykanka guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii xulka wararka caalamkood kala socoteen raadiyo xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada caabudwa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo bashiir yuusuf nadaaraha dhanka farsamadu waa samsam duraan intaan mid xiga ku kulmi doono sidaas iyo amaanaal